Bismillahirrahmanirrahiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Saaxiibayaal meel kasta aad joogtaan, waxaan idin leeyahay soo dhowaada. Waa saaxiibkiin oo idin leh gacmo furan ku soo dhowaada. Maanta maxaan idin wadnaa waaye barnaamijkeenu wuxuu ku saabsan yahay sidee baad farsamadaada ku soo bandhigi kartaa adigoon wax warshad ah haysanin. Waa arrin isweydiin mudan. Daawade, haddii aad ka hesho clipkan, subscribe legna saar, siina share garay. Taas waa codsi. Haddii aan u gudubno, waxaan halkan ku soo bandhigi doonaa fiidiyoyaal badan oo ku saabsan dadka loo yaqaano, gaar ahaan Soomaalida u taqaano tumaalka. Laakiin micnaheedu ma aha in lagu ixtiraami waayo. Taasoo micnaheedu tahay qofku farsamo yaqaan markuu yahay waa qof awood u leh noloshiisa inta ka dhiman inuu maareeyo kuna shaqaysto farsamadu Allah ku manaystay. Marka fiidiyogan waa fiidiyo horudhac ah saaxiibayaal, wax badan baan soo wadnaa haddii aan bahda Al-Shareeca Channel. Marka fiidiyogan haddii aad si fiican u daawato kana hesho muuqaalka aan ku soo bandhignay barteena Al-Shareeca Channel, waxaan kaa codsan doonaa inaad nagu soo biirto adigoo nagu tixgelinayo sida hore baan u sheegnay. Intaan kadib muuqaalkan ma faahfaahin doono, laakiin waxaan kala jeednaa in hor u dhacan oo noqdo midkii ugu wanaagsanaa ee ku bilowno muuqaalada farsamada aan u sheekay doono. Qof waliba siduu Rabbi subxaanahu wa tacaala u irsaaqo isagaa garanaya, laakiin dadku waxaa ka mid ah dad farsamo gacantooda ku kalsoon, kuna maareeya noloshooda ayagoo waxba warshad iyo isku murjinaynin. Midkaani waa mid ka mid ah dadka farsamooyinka dahabiga leh. Wuxuu isticmaalayaa caro, wuxuu isticmaalayaa biro la isku keenay, wuxuu ku sii isticmaalayaa maskaxdiisa iyo gacmihiisa, wuxuu adeegsanayaa biro asaga laalaabay weliba. Bal daawo muuqaalkan. Waa cajiib inaad adiguna ka faa'iideysan weydo farsamo yaqaanka. Weliba waxaan dhihi karnaa waa asal ahaan meesha ay kasoo bilaabmatay gawaarida, maraakiibta, doonyada, maxaa la oran jiray, diyaaradaha, ayu shay. Alaabtan maanta casriga aad arkaysaan halkay ka soo bilaabatay. Soomaalidu waxay tiraahaa marka shay maara loo waayo
lana garan waayo halka uu yacni ay fahmi waayeen yacni qaabkiisa waxay yiraahaan luqad alcarabi aan ku sheegi doonaa ikraal ahaad saaxiibayaal kullu shayin yarjicu ilaa aslihi sababta waa kan sababtu waxay tahay shaygan markaad garan weyso halkuu waxa uu yahay waa inaad doontaa ama raadisaa halka uu asal ahaan ka yimid waad fahantaa umaleha daawade sidaas waxaan